السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها شرفتي يا مسكبدن وصاحبكن إسماعيل ديري waxaan dib u milaysan doonaa barnaamijkan Revit Architecture waxaan qaadan doonaa wood frame house kaasoo ah inaan dhisto in la dhiso macnaha aan design gareyno sameyno guri laga dhisayo alwaax kaasoo u badan inta badan Latin America iyo Amerikada kala badan laga dhiso kusoo dhawaad shirka waxaan leenahay markood new halkan waxaan ka dhigaynaa architecture template architectural template marka tiraahdo okay leedahay okay the first time waxaan dhahnaa markii la soo galo maxaa la sameyn jiray waxaa leedahay manage waxaan saxaynaa project unitka waxaan noo qaadaa meter sidii caadada noo ahaydba haddana xuduud decimal place okay aan leedahay okay then waxaan sameynaynaa waxaan ku xidhi jirnay levelkan sii jirnay soma levelkaaga saxanaysa kan halka ku dhufo waajibinaynaa waxaan hoos u dhigaynaa minus 0.24 okay level kan ku soo dareynaa architect level kan aan ku darno kan waxaan nooga dhigtaa 4 meter and this one waxaan nooga dhigtaa 3 meter halkaas markaan joogno ku dhufo level 1 arkood waxaan sameynaynaa floor aan sameynaynaa rectangular ka qaado okay kan waxaan nooga dhigtaa 5 meter and this one meter okay then edit type aan leenahay duplicate floor of 30 centimeter qaadanayna okay edit halkan waxaa ka dhigtaa 0.330 halkan gal concrete kaas noqad okay okay very nice kadib waxaan sameynaynaa waxaan leedahay insert load family waxaan noo soo gelisaa US metric inaa ku jirta iska fiiri waliya waxaan noo soo gelisaa structural framing wood timberkaas noqot waxaan dhan hadda okay tira ku soo galayaan waxba ku falin okay tagayna beamkaas xabadkan noo soo baxay aan soo gashanay waxaan leeyahay duplicate marka tiraahdo maxaa leedahay 0.16 times 0.8 asii disho barote okay 0.16 midkaan kalena waxaa ka dhigaysaa 0.8 0.08 aan ka wadaa isinka 0.8 centimeter okay haddana mid kale level 1 kan tagno ma muuqanayo sababtu maxay tahay view range-ga ayaa u baahan in laga dhigo unlimit ka dhig bottomka levelkaasna unlimit ka dhig okay deh intana vine nooga dhig
kan noogu samay waxaa soo qaadataa align tool geeskaas gee kana cornerka gee. Okay, you see anaga dhex galay concrete kuna dhex galay marka kliga dhexe set z justification kaas ayaa wax ka dhigaysaa meesha topka ku button ka dhig, and this one like that sana bottom vertically structure ka beam dooro labadana corner ka gee inta soo qaadato align tool align to the wall to the corner. Okay, can taxi bottom and this one circle bottom. halkan markaad joogtid beam kalan dul saarayna duplicate isagu wuxuu noqonayaa waa 0.08 times 0.16 and 0.08 0.16. okay then sorry level 20 tagto waxaad tirahdaa view range-gan unlimit ka dhig. okay asoo wada baxay soo ma jeedin fine ka dhig. align tool soo qaado corner ku dhig more 3D ku fiirino. okay see justification kan top waaye macnaha top automatic top iskaga dhiga anaguna bataamayno very nice. align tool soo qaad align to the corner. okay beamkan array aan leenahay ilaa cornerkaasaan geynayna array halkan waxaan ka dhignaa 50-50 ka dhigno 20 xabo 20 this meelaas kale ku fiican yahay halkan last dheh kan soo qaad okay kadib waxaan saaraynaa plywood oo cover aan saaraynaa meeshaan qaybtan kore waxaan saaraynaa plywood aan saaraynaa 2D kaas ka dhigo plywood kan floor waxaan saaraynaa floor dheh duplicate plywood siisa waa iska 0.03 3 centi meelahaas oo kale
ilaa 3 sentimitir. Edit 0.03 halkaana plywood ka dhig. Plywood rectangle-kaas na soo qaad at the corner. kor soo qaad 0.03. okay, marka plywoodkaas laftirkiisa waxaan ka dhigaynaa transparency si hadda sidaan arkayno kala woodka aan u aragno macnaha. waxaa la overlay graphics element action graphics kan waxaa ka dhigtaa 65 63 sano wada may wallahi 6 ka dhig or 58 sano. okay halkaas markaan marayno waxaan ku dareynaa wall derbi aan saarayna because of haddaan tiirar keligood istaajino ma suuragelayso in iridkii iyo daaqadii ay alwaax ku dhagaan macnaha. marka aan soo waxa la sameynayaa marka derbigaas ayaan gelinaynaa. derbigaas waxaan ka dhignaa transparency hoos aan dhigaynaa hawa transparency-giisa. wallkan duplicate 0.16 centigan oo dhigaysa structure-kiisa. waxaa ka dhigtaa kan finish 1 asaasaa u saaray haddana insert kan waxaa ka dhigtaa finish 2. marka labada finish midna korgee midna hoosgee finish 1 able add finish 2 gana down. labada finish waxaa ka dhigtid wallkeygana way ahaa 0.16 macnaha finishingka wood wuxuu noqdaa mar walba waxaa laga dhigaa plywood laga dhigaa. plywoodkaas waa iska 0.015 oo kale 0.03 waxaa ka dhigtaa plywood finishing kan another finishing kan plywood oo sheeting midkan iron oo dhig iron. okay align tool noo soo qaad. waxay run helay halkan waxaa tirahdaa marka 0.03 aan ka wadaa. okay akaasoo transparency wallka laftirkiisa laga dhigaa transparency. kodora sar taabkayga taabo hamar highlight leh over graphics by element. okay then we put a door and window. daaqadii ridaan gelinaynaa. door geli dhinacaas kale u furmo dhinaca kale marka u wareegayo keligtaas taban. innaga marka door iyo window hadda sharaxi mayno horaan soo sharaxna macnaha. qaybta hoose ayaan soo dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. create similar line daaqadan iyadoo kale inta dhigaynaa
Okay, level 2 gan isku hay, then tiirarkaan soo qaadanaynaa, column aa ku dhufanaysaa, maanan soo gashan, haddaan soo gashanaynaa load column, waxaad tagtaa structural column ka tag, wood ku dhufo, timber column-kaan noo soo qabo, halkaas xaba noo qaad. Okay, duplicate aan leedahay, kan waxaan ka dhigaynaa 16 times 16, halkan waxaa tiraa 0.16, because waa mitir, hore waxaan ku raadinay centimeter waa 0.16. Okay aan leedahay, fine. Okay, height oo level 3 gaaraya, dib ma lahan, level 3 iska dhig. Okay, wireframe aan ka dhigtay, markaan waxaan sameynaynaa kale tiirarkii corners-ka waa sameynay, kuwan gudaha aan sameynaynaa. column aan leedahay, column-ka soo qaadata edit, duplicate, waxaa ka dhigaynaa 16 by 8, gudahan ka 0.16 kiisa ay ahaado 0.08. Okay dheh, waa wata, marka saasuu iga yahay. Si aan u bedelo intara taabanaya, waxaa taabanaysa aan ka wada space-ka, fine. Wireframe, okay, balan fiiriyo. Okay, magaala markii ugu batay si fiican uma arkayo maana, marka caadi aan u dhigaynaa wada text time ya. Okay, thank you, very good. level 2 gaan nagu celin, waxaan soo qaadaa column, hal xabo oo mustamaalahan kan noo dhig. Okay, saa kale dheh array dheh, almost 10 pieces, okay, 0.15 pieces aan iskula socdaa.
tobankaas xabo 8 pieces aan ka dhig. Okay, dhinaca second. Okay. intaas aan highlight gareeyay ayaa waxaan leeyahay mirror okay. Okay, qaybtan wajiga horaan hore waxaan soo qaadaa column space ka taabo ku tooso iridka garabkiisa ku leeyahay and here okay escape deh. Okay, 3D balan fiirino. Okay, si sound dhaafeena. Okay, level 3 nagee, level 3 gaan tagaynaa marka meel view range macnaha hadda arkaysid view range unlimit okay. halkaan waxaa ka dhigtaa vine halkaan markaad joogtid waxaad samaynaysaa beam soo qaado beamka kan qaadana kii 16 ka ahaa kan noo kan fiirina horta isaga waxaa soo maahan waxaan samaynaynaa halkaas beam aan soo kobiyaynaynaa qaybtan iyo qaybtan hoose si daaqadahan uu u celiyo waxaad tagtaa soodkaaga joog kaliya dhaho koobi soo dheh
constraint counter uncheck constraint. Okay. Okay, can on can get a sign. Okay, halkan tiirna iska kan kaas looma baahna. Okay, هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجستي عشرة كويحة واحد سمع دونا دولا روف كان قرآن قدرنا Control S ده سوسف جريستو أدي هذا ما سنتين.